بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan rabaa aan ka hadlo arrimihii teknolojiyada ku saabsanaa iyo fahamka dadka Soomaalidu ay ka qabaan xagga teknolojiyada waxyaalo aan ka bartay muddadii aan ku dhex jiray teknolojiyada iyo dhaqanka dadka Soomaalida guud ahaan waddanka Soomaaliya waxaan rabaa hadda inaan xoogaa yar ka taabto muhiimadda uu leeyahay waxa la yidhahdo online presence shirkad ama xafiis dowladeed ama hay'ad ama qof ama in aad ku yeelato bog internetka website macnaheedu waxa la yidhahdo inaad ku yeelato marka waxaan aad u arkay dad badan oo ganacsato ah oo muhiim ah shirkado waaweyn oo dhinac walba leh dhinacii kuwii aqoonta sida isbitaaladii iskuulaadkii looyaradii ganacsatadii kale injineeradii macnihii oo howlaha websaytyada ama inay online presence yeeshaan aad uga cagajiiday oo qaarkood ayba ku dhahayaan inaad waxa uguma baahnin tusaalahaan waxba uguma baahnin buu leeyahay marka waxba uguma baahnin miyuusan garanayn faa'iidada ay leedahay inuu yeesho website uu samaysto ama bog samaysto online presence yeesho mise waxa weeye wuu og yahay wuu garanayaa faa'iidada website uu leeyahay iyo baahida muhiimka ah iyo sidoo wuu iska dhaga tirayaa oo waxyaalo kale jira markaan u kuurgalay aniga waxay soo baxday inaysan dadku badanaa fahansanayn faa'iidada website uu leeyahay ama website wuxuu yahay siisa حتى waxaa jira dad iyagu aaminsan barahan bulshada inay kaliya ku ekaadaan Facebook baan leeyahay for example Facebook aan ugu filan ugu leeyahay marka Facebook page aad ku leedahay ama Facebook marna waa account qofku uu leeyahay oo kaas ku eg ilaa 5,000 oo qof oo friends waxa la yiraahdo aad yeelan kartid iyo page ganacsi oo aad Facebook ka dhex samaysato account asagu naftiisa ku xiran account qof leeyahay page-ka marka la sameeyo business-ka Facebook laga dhex sameeyo kadibna maaragtay halkaas wixii fariimo oo ganacsiga lagu faafiyo lagu fuliyo marka haddaan isbarbar dhigno Facebook page inaad yeelato iyo inaad website yeelato kee fiican Facebook kala duwan horta farqiga u dhexeeya waxay kala yihiin Facebook page macnaheedu waxaad ku dhex leedahay Facebook platformka Facebook ee social media ayaad ku dhex leedahay page Facebook leedahay oo shirkadu leedahay ama adigu personal leedahay ama ururkaagu leeyahay ama waxa marka Facebook qof ku jira iyo dad khaas ah oo marka adigu aad target gareyso oo ama kugu xiran oo Facebook account leh baa ku arki kara oo kula macaamili karo kula soo xiriiri karo qofka Facebook page kaaga waqanaya waa inuu yahay qof Facebook page leh isla markaasna Facebook intuu galo kadib ku hela adiga oo adigu inta dadaashid oo dadkii maartay ama lacag aad bixisid Facebook advertisement ku samee ama si kale dadka ku gaar aad marka halka ku kasbatid dad Facebook ku jira inay adigana kula socdaan marka Facebook oo ka dhex samaysan page Facebook kaaga dhex samaysan waa dee qol yar oo guri nin leeyahay kaaga dhex samaysan halka website-ka ama bogga uu yahay ciwaankaaga khaaska ah ee online ama internetka kugu jira oo adigu aad leedahay oo markaas maaragtay xarfahan la hormariyo www.facebook.com oo kale www.google.com oo kale markaad tiraahdo ama google.so ama waxa taasoo kale aduu yeelanaysa marka bogga ama website-ka ayaa xoog badan oo aad cid badan ku gaari kartaa wax badan ku qabsan kartaa ciwaanka saxda ah oo adigu aad leedahay waa website-ka ciwaanka saxda ah internet ku leedahay waa website-ka oo faa'iidooyinka ama muhiimadda uu leeyahay website waxa weeye qof kasta oo caalamka jooga ayaa ku arki kara oo ku heli kara hadduu macmiil ku yahay hadda
kugu xiran hadduu yahay qof dalka aad joogto jooga hadduu yahay dibad jooga meel kasta jooga halka facebooka pageka aad ku leedahay uu yahay dee qof uun oo martaqaanaa facebook leh oo markaa adigana si gaara dana idinka dhexeeyaan halkaasna facebook halkaa kaa hela halka websiteka qof kasta uu ku arki karo caalamka oo dhan marka faa'iidooyinka websiteku ama boggu uu leeyahay haddaanu facebook waxaa ka tagno waxaa ka mid ah in qof kasta ku arki karo oo qofku wuxuu u baahan yahay keliya internet bas iyo inuu markaa boggaagii uu galo meel kasta uu joogo isla markaasna waxay websiteku tarayaa ama leeyahay dee aqoonsi weeye haddii lagu aqoonayo caalamkii maanta internetkaasaa la iska helaa la iska arkaa marka haddaad website leedahay si fudud baa lagugu ogaan karaa laguna hubin karaa inaad tahay shirkad jirta lawyer jira iskuul jira isbitaal jira xafiis dowladeed oo markaa shaqaynaya wixii ku qoranna markaa waxaa loo arkayaa ama ku jira websiteka laga helana wax adigu aad leedahay oo sax sababtoo ah websiteku wuxuu ka bilowdaa marka website markaad samaysanayso maxaad ka bilaabaysa magac baad ka bilaabaysa www magaca ganacsiga.com www magaca ganacsiga.so saas oo kale .net.org waxaa extensionada ka rabto baad qaadan kartaa .so for example waa Soomaaliya markaad ganacsi Soomaali tahay oo rabto in Soomaaliya maaragtay ugu arko inaad Soomaali tahay .com waa isticmaali kartaa .net iyo wixii kalena waa isticmaali kartaa marka hore horta magacii ganacsigaaga ama soo gaabi ama soo dheer boqor ayaa horta ka bilaabaysaa waxaad ciwaankii iyo addresskii iyo emailkii ama communicationkii wixii oo dhan uu ku hoos jiraa magacuu ku hoos jira marka la diiwaan gelinayo sidaa darteed si fudud baa markaa lagu hubin karaa websitekan inaad adigu leedahay oo cidda aad tahay oo aad sheegayso aad tahay waa dhinaca credibility wala maroon uu kaa caawinaya oo waxaa dhacda inta badan haddaad hadda shirkad la xiriirto ama cid kale la xiriirto cid kasta oo mas'uuliyad ama sharci garanaysa waxay eegaysaa boggaan aad kala soo xiriirtay muxuu yahay kaagiba boggi markay galaanna waxay arkayaan markaa macluumaadkii ay rabeen ayay ka helayaan ciwaankaagii meeshaad deganeed waxaad sheegtay historygaagii wax productigii wixii haysay websiteskuna wuxuu noqon karaa website yar oo kooban oo informationka iyo xiriirka iyo si lagula soo xiriiri karo emailka iyo contactigii iyo waxaas ku eg iyo historygii shirkadda iyo ganacsiga iyo noocay ku jirto wuxuu kala noqon karaa website ku mid weyn oo baaxad leh oo database iyo sistemo kale ku xiran yihiin oo shaqooyin badan lagu qabto oo adeegyo badan sameeya mid wax laga iibsado noqon kara mid wax laga dalbado noqon kara sida e-commerce oo kale wuxuu noqon karaa mid macaamiisha iyo adiga isku keen xiro oo interactive la yiraahdo su'aalaha iyo waxay soo weydiiyaan macaamiishiisa markii looga jawaabo yani baaxadda website ku yeelan karo website caadi oo normal oo iska fudud oo yar oo koobanna waa noqon karaa website iyo system weyn ka dambeeyo uu noqon karaa oo shaqaalihii iyo maamulkii iyo kulli ay isticmaalaan oo qaybo badan kulli marka hore website magacaas uu ka bilaabanaya iyo aqoonsi sidaa awgeed websiteku waa muhiim inaad bog internet leedahay waa muhiim shirkad haddaad tahay noocay doonto baa heerkaad doonto ahaw marka dadka isku khaldaya inta badan barahan bulshada oo inta badan baraha bulshada waa aragnayo waa kuturi kuteen iyo waa kan bay u badan yihiin waxaana iyaga loogu talagalay inay la mataanaysid websiteki oo boggii aad la mataanayso oo dadkii badnaa ee ku jiray facebooka tusaale ahaan aad fursad u siisid inay janaalkaas facebookana kaala soo xiriiri karaan oo wax ku promote gareyn karto oo wax ku fariimaha iyo waxyaalo badan ku samayn karto laakiin meesha asalka ah waa websiteka way aad leedahay shirkadda ama xafiiska ama mataqaana hadda waxaan arkaynaa dad badan oo xataa hay'ado dowladeed ah hay'ado ganacsi ah
buugag leh laakiin buugagoodii aan maaragtay si fiican aysan u shaqayn laakiin waa bilow mar haddii bog leeyihiin oo wixii habka looga shaqaysiiyo iyo taas waa arrimo kale laakiin muhiimadda hadda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye bogga internetka ama website iyo wixii kale yani internetka ama online presence siisaba waxaad leedahay markaad website leedahay markaad bog leedahay email hadda google ku leedahay emailku waa qaab kale oo internet ah oo lagu xiriiro faylashii messagedii attachmentskii wixii lagu diro laakiin waxaad ka furatay google baad ka furatay ama yahoo baad ka furatay ama hotmail outlook emailada noocaas ah isticmaasho ama kuwa kaleeto oo maaragtay soho iyo baad ka furatay laakiin waxaad samayn kartaa email professional oo website-kaaga aad ka isticmaasho haddaad bog leedahay boggaaga naftiisa info@website-kii ganacsigii magaciisii .com ama .so si markaa ciddii aad la xiriireysay ay maaragtay credibility ahaan iyo u ogaadaan inaad tahay waxaa meeshaad xag soo diraysay ciddii wax soo diraysay ay tahay shirkadda tahay cillad badan oo internetka uu leeyahay oo dhinaca cyber crime-ka waxaa la yidhahda dembiyeedka internetka ayaa jira oo aad maaragtay waxyaalo badan oo khaladaada lagu galo waxyaalaha marka inta badan keena in la aamino emailkan meeshuu ka yimid waxa weeye emailku marka uu magaca shirkadda wato ama website-kii shirkadda wato website-kii baa la gelayaa waa la hubinayaa waxa ku qoran waxa ku jira website-ka inay shirkaddaa tahay halkaa tahay adresskeeda laakiin markaad gmail ka tirto ama hotmail ka tirto haddee cid ku taqaano iska ka aaminto iyo maahina xiriirkii ama umadaad markii hore intaad booqatay u tagtay meeshooda ugu tagtay xafiiskooda ku arkeen oo markaa emailkii siisay oo si hadda ganacsatada Soomaaliya isticmaalaan China oo kale u tagayaa Arabo u tagayaa marka gmailkii ama hotmailkii uu soo siinaya oo bilay halka emailkaas ka wada xiriir marka dhowr jeer marka lagala xiriiro kadib waa la garanayaa business sababka laakiin haddaan meel adoon tegin aad la xiriirto shirkad kale oo email gmail ama hotmail kala xiriirto iyo markaad kala xiriirto email ka yimi shirkadda magaca website-ka waxay u sahlanaysaa inay website-kii iyo information-kii oo dhan ay helaan si fududna markaa kugu aaminaan anigu waan arkay dad badan oo shirkado ama hay'ado caalami inta la xiriireen la yiri noo soo dir boggiina tus maxaad tihiin maaragtay bal profile-kiina iyo xaaladihiina iyo saan ogaanaa runay waxaad qabataan noo soo dir website-na male marka shaqo bay ku noqoto qaarkood waxaa la sheegay inay Facebook page ay ku leeyihiin ay email linkin ugu direen oo dhaheen Facebook page-kayga waa kaas kadibna la yiri war Facebook page iyo waxaas anagu ma aaminne Facebook page waxa shay waa maxay oo maaragtay wajiga wax ku noqotay because waxay rabtaa hay'adu rabtaa ama shirkadu rabtaa profile-kaaga oo dhammaystiran inay hesho mid kale website-ku wuxuu keenayaa credibility-ga kamid ah marka laga reebo dee caalamka oo dhan inaad ku gaari karto qof walbana uu ku heli karo oo si fudud Facebook galaada miyuusan lahayn qofka internet kaliya u baahan yahay website-kaaga uu gelayaa information-kaaga uu helayaa uu kula soo xiriiraya laakiin waxaa kaloo meesha ku jirta oo haddana ay eegaan adduunka la eegaan shirkaddan website-kan imisa sanay lahayd website-ka 6 bilood diiwaan gashan waa la ogaanayaa oo waxa weeye domain name-kii baa laga ogaanayaa xilliga diiwaan geliyay hosting-ka iyo meesha uu ku kaydsan yahay ayaa laga ogaanayaa oo laga baaraya whois.com hadda inta gasho website aad shirkad ku soo dirtay ama adigu aad garanaysid aad ku qorto magaciisa waxa ku soo baxaysa website-kaas xilliga la diiwaan geliyo ku soo baxaysa 10 sano ka hor diiwaan geli iyo haddii shalay diiwaan gelin intuu arkaysa marka si fudud qoladii la xiriiraysa ama qoladii rabtay inay ku baarto waxay ogaanaysaa haddii website-ka 3 sano jira 4 sano jira
iyo markuu 6 bilood jiray waa kala fiican yihiin website 4 sano soo jiray macnihii waa xog badan baa laga helayaa marka waxaan rabaa inay dadka Soomaalidu runtii way ka gaabiyaan aad bay uga gaabiyaan inay online presence yeeshaan oo online presence waxaad ku yeelan kartaa oo kaliya inaad bog internet oo adigu aad leedahay aad hesho bog internet wuxuu rabo noqon karaa basaan yiri bog yarna waa noqon karaa oo information-kaaga iyo waxa macluumaadkaaga leeyahay for example haddaad lawyer tahay ama engineer tahay iskii u shaqaysto oo aad bog yar samaysato oo magacaaga ama shirkadda ama consultancy waxaad bixisid magaca aad .com ama .so inta samaysatid aad markaa ku qortid profile-kaaga waxaad naqshadihii aad samaysay haddaad lawyer tahay dacwooyinkii waxaad gashay 5 page 4 page meesha lagala soo xiriiro email ka samaysatid intaas yar waxa weeye wax weyn bay ku qabanaysaa oo lawyer oo kale muxuu iibinaya cilmi buu iibinaya engineer oo kale muxuu iibinaya cilmi buu iibinaya cilmi qofka asagoo London jooga ayuu ku dhihi karaa dacwadda ii gal laakiin inuu jiraa meesha xiriirkii waa inuu inaad u suuq geysaa engineer haddaad tahay for example يعني hal qof aan ka hadlaynaa meesha ugu yar baan ka soo qaadan website weyn oo shirkadeed oo waxyaalo badan u qabanaya oo ka hadlaynaa ama alaab lagu iibinayo ama meesha ugu sokaysa macallin baa tahay maadaad ku fiicanta bog yar inaad samaysato oo profile-kaaga iyo waxaaga laga helo macnihi ciwaanka internetka ee shirkad ama qof hadduu rabo in la ogaado hadduu rabo inuu caalamkaas internetka oo dhan ka faa'iidaysto waa inuu bog internet yeeshaa website waa inuu yeeshaa haddii kale mar walba waxaad ahaanaysaa obscure oo qarsoon tahay Facebook lahow ama Gmail lahow okay waa fiican tahay waa ka laakiin meel anigu inta galo aan profile-kaagii oo dhan macluumaadkaagii helo si fududna markaa aan kula soo xiriiro waxa kaliya oo laga heli karaa waa website-ka baadooyinka website-ka maxaan niri in lagu aamino baa ka mid ah in qof kasta ku arko baa ka mid ah in waxa ka mid ah macaamiisha u fududeyso siyaabo kala duwan ay kula soo xiriiraan qofkii uu u baahan yahay kaliya inuu hadduu telefoonka kaliya u baahan yahay meeshuu ka helaya telefoonkaas u wacay hadduu emailkaas u wacay hadduu formka ama qaabka contactiga aad u samaysay halkaas kala soo xiriirayo hadduu cabasho qabo oo kuu soo diray wuxuu kaloo keenayaa in lagu aamino inaad suuqgeyn weyn samaysid oo qof kastoo caalamka joogana uu ku arko uu ku helo waa ka mid ah faa'iidooyinkiisa iyo in lagu aamino waxaa kaloo ka mid ah shuruucda sharciga aad ku shaqaynayso hadda ceebaha jira waxa weeye isbitaallada ama iskuulaadka ama jaamacadaha ama meelaha adigu injineerada saan sheegnay oo kale badanaa ama ururada xataa dawliga ah qaab ka mid ah website ma leh bog internet ma leh meel aad ka eegto sharciga uu ku dhisan yahay oo ma jiro sharciga isagoo ku dhisan yahay ama xuquuqaha uu shacabka u hayo ama waxa asaga dib loogu leeyahay wuxuu xaq asagu leeyahay midna toona ma leh magaalooyinkeena waaweyn baan boga gaara oo aan lahayn magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya tay doontaba ha ahaatee bal u fiirso in yar baa website leh ama bogag leh hadday leeyihiinna bogagaasu maaha bogag faahfaahsan oo dadweynaha fariimaha ay u baahan yihiin ay ka helaan ama gudbiyaan waana ceeb hadda waxaad arkaysaa dad siyaasiyiin oo sarsare oo Facebook-ka ha lagu dagaalamo iyo Facebook-ka ha la bay ku leeyihiin waa meesha dowladdu waa inay tiraahdo Facebook-ka iyo waxa ku qoran ha rumaynina waxa ku qoran been bay u badan yihiin iska hubiya meeshay dadka uga digi lahayd hadday tiraahdo dad siyaasiyiin qaarkood baan maqlayay oo ama la sheegaa oo maaragtay ku dheganba Facebook-ka wasaaradaha hay'adaha dawliga
kuwa badan baa website leh ku maasan yihiin laakiin haddana website-kii ma aha mid wax badan ku qoran yihiin ama macluumaad badan laga helayo adeega haba noo dambay marka qoraaxdan intaas baan rabay inaan ku sheego oo iraahdo bogga wuxuu rabaa haddaan facebook.com saas ku galaysaa soo google.com ama amazon.com alibaba.com bbc aljazeera.com saasaad ku galaysaa waa magacyo waaweyn laakiin mid yaroo adigu aad leedahana waa samaysan karta jaamicali.com baa samaysan karta alimageedi.so baa samaysan karta organizationka ama cid walba qof kastaba uu samaysan karaa bog isaga u gaaro oo internet facebook ka hadlima bas waxaan facebook waa qof facebook un leh baa ku arka oo markaana siyaabo badan adigu intaad ku heli karta hadda Soomaalida ama page-ka emailada waxaan leeyahay Facebook ku jira kuwada ugu badan 60,000 100,000 oo qof ay ku xiran yihiin oo waa yari laakiin haddana kuwada fiican in badan website baa jira oo mainka oo meesha loo raaco wararkii iyo wixii ku saabsanaa shirkadda ama hay'adda ama kuwa wararka hadday yihiin bogagaasaa la aadaa oo laga hubiyaa waxa Facebook ku qoran ile Facebook qof walba soo ekaysiin kara soo page-ka adu aad samaysan mid lamid ah la samaysan kara marka waxaan leeyahay online presence inaad internetka joogto ama aad bilow lug ku yeelato waxaa kow ka bog internet inaad leedahay taasna waxaan u sheegayaa cid kasta oo ama professional ah oo iyagu saadan lawyerkii oo kale engineerkii oo kale ama institutional iskuulaadka jaamacadaha xarumaha caafimaadka maamulada hay'adaha ganacsiga nooca doonaha ganacsiga hotel hadduu yahay hadduu college yahay hadduu yahay mutaqaana ganacsi bakhaar ama alaab iibinay ama soo dhoofinay kulli waxay u baahan yihiin in walba qaybtiisa inuu ka qaato oo uu yeesho ama samaysto bog internet oo isaga gaar ah si markaa faa'iidooyinka badan ee internetka ugu horeyso in cid walba ku aragto iyo in lagu aamino iyo inaad sharciga hogaansada in kale ay ka muuqato halkaas mataqaanaa laga hubiyo marka yaan la isku khaldin ogaalkaas iyo fahankaasna insha Allah waa dhiirigelinaynaa waxaan rajaynaynaa inaad maaragtay videogan dee xoogaa aad ka heshaan bal wacyigelintaas oo aad wax ku ogaataan waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh